Ogtaan qof walba guulaystay inuusan kaliya tahay shaqo fiican lahayn balse uu leeyahay xirfadooyin kale yaryar oo lagama maarmaan tahay in qof walba oo doonaya inuu ku guuleysto dhankiisa shaqada iyo xiriirka nolosha iyo bulshada dhexdeedaba uu noolaado. Qof aan hore u aqoon kaliya hadal fiican iyo isfaham wacan daraadeed ayaa kalsooni kugu yeelan kara. Hadda u fiirso nafsadaada, ma ogaatay sida dad kale ula dhaqanto? Ma awoodaa in hadalkaaga si nadiif looga gudbiso ama problem jira aad si xikmadaysan u xalliso? Muuqaalkan maanta wuxuu kala qaadi doonaa ilaa 3 qaybood. Waa maxay soft skills? Maxaa asaas u ah soft skills-ka? Sidee u horumarin kartaa xirfadaha soft skills-ka? Waa maxay soft skills? Soft skills-ku waa xirfadaha aan arki karin sida technical skills-ka balse aad u muhiim ah. Waxaan dhihi karaa soft skills-ku waa sidaad u fikirto, ula dhaqanto dadka kale, una xalliso problems-ka jira. Soft skills-kuna waxaa ka mid ah communication-ka, teamwork, empathy, time management, iyo leadership. Maxaa asaas u ah soft skills-ka? Soft skills-ku waxaa asaas u ah communication skill. Communication skills-ku waa tiirka koowaad ee soft skills-ka, waxaana kala jira noocyo kala badan ee communication skills. Communication skills waxaa soo hoosgelaya ama noocyada waxaa ka mid ah verbal communication oo ah sidaad u hadasho aad u gudbiso opinion-kaaga. Taasna waxaa soo hoosgelayo written communication oo ah sidaad u qorto emailska, reportska iyo wixii la mid ah. Nooca labaad ee communication skills waa non-verbal communication oo ah sida jirkaaga u hadlo. That not means sida jirkaaga u hadlayo balse oo ah sida outfit-kaaga aad dharkaada ugu soo bixiso and so on. Nooca saddexaad ee communication skills waa active listening oo ah sida aad u dhegeysato qofka kale. Tani door muhiim ah ayay ka qaadataa communication skills-ka. Communication skills-ku sida waxaa lagu qeexaa inaad laba qof information isku gudbiyaan aimka laga doonayo uu yahay inay isfahmaan. Hadalkaagu waa inuu cadaadaa, koobnaadaa, oona la fahmaa. Dhegeyso qofka kale oo chance-kiisa si aad labadiinaba isku fahantaan. Sidee loo horumariyaa xirfadaada soft skills-ka? Isugu marka hore baro nafsadaada. Maxaad ku fiican tahay? Maxaad jeceshahay? Maxaadse u baahan tahay si aad u horumariso xirfadaada? Midda labaad, baro oo practice garee waxaad baratay oo aad fahantay markii aad samaysay research-ka waa inaad is ogaato nafsadaada. La communicate garee oo la hadlo dadka kale, la shaqee teams-ka si aad wax badan uga faa'iido. Adigu waad u baahan tahay, dadka kale ayaguna way kugu baahan yihiin. Wakiilnimada halka ku jooji. Midda saddexaad, social engagement. Ka qaybgal bulshada, isku imaatinka seminars-ka iyo event-yada oo ka qaybgal dadkaasi si aad wax badan uga faa'iido. Xirfadaha soft skills-ka ma aha xirfado kaliya loo baahan yahay dhanka shaqada, waa xirfado noloshaada oo dhan wax badan ka beddeli doona. Waa furaha xiriirka wanaagsan, guusha mustaqbalkaaga, iyo inaad noqoto qof la jeclaado lana aamini karo. Haddii aad wax ka faa'iiday, fadlan muuqaalka like saar, channel-kana noo subscribe garee. Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Bye.